الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى ومنعم isagaa inoo nicmeeyey nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo lamana soo koobi karaayo hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan nicmad yar iyo nicmad weyn nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanee ka dhaxaysaa nicmadda weynina dad gaara ayaa khaas u tahay nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa kaan muslimka ahayna uu haysan karaa
waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatu liijaad. ilaahay isagaa ina jirsiiyey, maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiya uu sheegi 30 jir 40 jir 50 jir haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay. horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahna waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiil iga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay idhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri. bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat. arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila. khalqi fara badan oo sameeyana insaankanaan ka karaameeyay baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma eh, balka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar. ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mida baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiyee, bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid fariidii iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadku aada u jeclaa. keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa. markaa khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde, liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii. jibriil baa u yimida calayhi salaam. yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib buu ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi. ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nigida buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabudaya hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dheh khaliilkayga, ma maalin keliyuu ku yimid daad cunto siini weydee 70 sano sanabkaa uu samaystay caabudaa on weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay. arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. nicmaddaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan. caqligaa dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan. nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan. akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalafida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn. markaasuu maqal inii yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmaddaasina waa nicmad cumuumiya. nicmaddaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa.
منعم وإلهي وما أصبح منكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وحلي وحن نعمة هذا هيستان قبلكم إني لا دعايو وأقول إني قبر يا إلهي بنسي كونك إلهي بني سخري أدعد إلهي بصو صاريا أمرك إلهي بكو صباح يسا أمرك إلهي بكو دعيسا قولك أتكسعت إلهي بكو بلاريي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله صمد إلهي بسميي وإلهي قعنتيسو صمد كو سميي قعنتيس دولك إلهي بفر الشيء أو بلاريي شيء كستن الله أيان كدقني با إلهي دسادو أن تودان دراري يا هبين ضيح يا عدعاد كليل يا غبو أبار يا برواقو نبت قليا يا عبسي نلول يا جيري حنون يا عافمات لبي يا ددق فقير يا غني حنون يا عافمات فقر يا غنى عزة يا ذلاء شيء والبلبا أيان كدقني با إلهي دسادو أن تودان ففروا إلى الله حق إبهن ويا حق مخلوقه ويا عنا غير الله كياع أو إلهي حقي سأياع من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه نك شيء كعب صدا شيء أكبح صدا وكأرضا نك إلهي كعب صدا إلهي حقي سوء أرضا هدي اللي بقى حد أتكعب صدا وأتكبح حسن هدي إلهي أتكعب صدا حقه بحسن حقي سوء موضوع بحسن مالك الله بحسن يا مجرته مالك الله اسكو ديبه يا مجرته حقي سيسكو ديب تصغير إلهي إنسان كان سيكون كوسخري سخر لكم ما في الأرض جميعا برقي بكو سخري بوريه بكو سخري بدي بكو سخري حودي بكو سخري كائنات قدام بعدك كو سخري حوله بكو سخري وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين بإلهي وإن لكم في الأنعام نعموا ليدات هيستان عبرة إن يقصوا جنب إلهي نسقيكم ونجا ورابنا مما في بطونه شيء علوش إذا يكون هيستو عنا هاسون كسر ده صارنا بإلهي ديجي أوسين تود حيسا كسر صارنا بليد عنا عب تصغير حوله بالغوص صخري عدعدي بالغوص صخري هبنك بالغوص صخري درارته بالغوص صخري biyaha lagu sakhiray hawada lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqeynaysa arsaaqadaada wax kale ba ka shaqeynin afarta malag ee quraanku sheegay jibriil alayhi salaam iyo israafiil alayhi salaam iyo mikaa'il alayhi salaam iyo malakul maut afartaas bini aadanku ba u khidmeynayaan labana ruuxda ku shaqaleeyeen labana jasadkay ku shaqaleeyeen laba jasadkay ku shaqaleeyeen jibriil alayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadanku ay ku noolaanaysay mikaa'il alayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqaleeyahay israafiil alayhi salaam wuxuu ku shaqaleeyahay insaankan in ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo nooleeyo hadana malakul mawtna wuxuu ku shaqaleeyahay qabd al arwaax inuu bini aadanka ruuxda ka qabto الإنسان كسد إلهي أكرم يوفرسه خلقنا إلهي سجينا أبو ري سجينا جرسيي سجى إلهي نو نعمي يا أيها الإنسان وداعي ولبا إلهي وكويا ريا كما هدين ولبنا إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سوائي با إلهي أنيجي أدون كيجا وربنا دحمر با إلهي وروين بنا قد حدعي أخلق وأنيجا أبو ري با إلهي ويعبد غيري غير كينا وعبديا احنا أبو ري غير كينا وعبديا غير كينا ورجينيا غير كينا وتلصارنيا غير كينا وسكوها لينيا غير كينا واعتماديا أرزق ويشكر سوائي أنيجا يا أرزاق با إلهي غير كينا وأكون مهدنيا أرزاق دايا بحيا الله با بحيا خيري إلى عبادي النازل وشرهم إلي صاعد با إلهي خير كيجا مالي والبوس ودقيا عضومهايجا شركوغين عنو صوفو ليا با إلهي مالي والبوات أسكون كوردن لغو سخري هودي بيه دبيشي عدعادي درارتي هبينكي أرزاقدي بيه والغو سخري أعماش بني آدم ككسوفو ليس إلهي حقي صلو قاضينا وأعمال إلهي كعري سينيسا انت هذا إلهي عاسنيسا انت هذا إلهي عضيعيسا يما بدن بلدوش حسابي خيري إلى عبادي نازل وشرهم إلي صاعد خير كيجي ودقيا مالي والبا شركوغن عنو يصوفو لا با إلهي
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس بالنبي يقولي مالين كستو اثنين يا مالين كستو خميسة أعماش أضومها جركو كسو بحدا يا إله الله بندقاب رسولك يقولي ها markay adoomadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jalla wa ala wa'roonaya atahabbabu ilayhim bi ni'ami wa ana al-ghaniy anhum wa anu ni'maynaya ba ilaahay walibana wasja'laysiinaya anigoo u baahnayna walibana ka kaaftoon ba ilaahay leeyahay wa anu ni'maynayna dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay uma nabaanin haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday wada caabudaan waxbay ma ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxbay kama naaqusayaan yaa cibaadii law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ba ilahi hadith al-qudsi adoomahaygiyo kiini hore kiina dambe jin iyo insigiin haddaan noqotaan sida kiini inigu alla kaya badan waxba aniga ima ziyaadinaysaa ba ilahi leeyahay culimada qaar waxay ku fasiraan waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sida nabi maxamed ilaahay uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kanuu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diido u jabiyey isagoo quwaddeeda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi waxba atahabbabu ilayhim binicami wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay say i jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wahum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmaddeeda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmaddeeda u qabaan baahida raxmaddaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqda baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nnahaar wayabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u lleyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilaahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo laamba ii soo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhum min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayay waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waan ii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanayaa ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa mee kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudayay kuwii dollarka caabudaya dollarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahine may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid tacisa cabdu dinaari wadirham buu nabigu yidhi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudaya khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku badishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan
ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummaddeeni iyo dalkeennii baabiise ma akhire wax ku tari markaas xamiyadda iyo jaahilnimada haska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam nabiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah jawaamic alxikam baa la siiyey rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimat illaah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan xoog ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay innaka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanaya aawaya kuwii arsaaqadayda cunayay khayrkiina caabudayay ayna hum arsaaqadda ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay aaway buu ilahay odhanaya waa nargoosanaya maanta anigune marka qofku hadduu macsiyadda ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo adduunyada intuu nool yaha waa loo sii ta dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin oo argoosan ilaahay marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhawaad caabuday ka dhigan tahay waxa li wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiya waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa ilaah macneegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu yusama lilaah man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara minii canhum faman adbara canii minhum casiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii halkee tegi buu odhanayaa meel kaloo tegaysa ma jirte fa ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenin ilahay uu noo caddeeyey nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmat liimaani walislaam iimaanka islaamnimadu waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku daaqay nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmat liimaani walislaam ma xadidno bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkai abadiga ahayd adduunyaduna xaqiiqa mahaba wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu ya baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wasiyat lawaliina walaakhiriin waa maxay falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun nebi ibraahim calayhi salaam wiilashiisa wuxuu ku yidhi ubadkaygiyow ilaahay diintaasoo inii doortee yayna ajashiyo geeridu nii iman ilaa ininkoo diintaayo xadhiggaa haysta maahine hadday nii timaado ajashu ininkoo xadhiggaa haystana waad liibaanteen hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysanna khasaara waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankooga way ka baxeen quruumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin waa ka soo baxeen
meeshana waa ka la iskaga yar cascasiya baawra la iska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawaddu lmujrimu low yaftadii yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaana shiba ilaahay baa leh fakayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeyahy seenad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmaduuna siiye aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad racdaan miyaanad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cinaceed wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasanaha ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannaaan ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim baleg yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi miyaad guursatidaa waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jiraa i kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa i caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meel u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadan alla weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada u dhib yaraatay raaxadii adduunyada ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa innaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaa ku darso wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adiga ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkanaan ku nool nahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatun min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa
sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhammeeyey suuratu lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifana baa ilahay yidhi waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhammeeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa hu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey 30 maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu oyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mid a ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa ku soo degay isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari leeyahay quu anfusakum waahliikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi waxaa yeele diinta lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku weeye waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa addoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fawqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa aktartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mid a adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaa baa ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslayaa allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore quluubtoodu markuu iftiinku gale nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay 4taa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigiibay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga waad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso
oo faham gabadhay walaasheeda muslimaday zamanka dadku sidii quraanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkayso dhan beene waxa samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan quraanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhex karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markii xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhaahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ilaa dabiib u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين ويان واحد زيادة مهلس أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يجا عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يجا عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يجا عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يسنا لكن محل لغو بدادايا وحل لغو بدادايا هل كان لغا قادنايا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي نسائر وحيري إن آدنوا ما لنتي أدويدا دمنيسي ما لنتي أدويدا إيمانيسي وحيه إذا كنا الشيء أدو أويا دتكنا أكتر أي فرح سيهين عنو قبركو دلنا بقاق وقيل يسقو لكن دتكو يفرح سيهين فاحفظ لنفسك نفت هذا انت نوشه إلاليو أمرك إلهي كو إلاليو دينت إلهي إلى السؤو إيمانك إلى السؤو سلان نمد إلى السؤو أمرك إلهي هسيدين سمان انت دمان يسو هذا دويد وقتك تهدقو فرحسن دتكو أكتر أي كو أويان دتكو والله وضع ننا دويد وحكتك يسقو فرحسن ننا ومستريح ننا ومستراح ننا وننا دويد اللوغة الراحيي ودارتي آخرة الراحة دي بالله قادي ننا دمشيدي سمركو دنتدتك بكر راحي سنايا hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay berri waad haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waad dhiman adduunyada ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiyan min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi adduunyada lagama dhargo ma dhargaysid maxaa yeele laguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhammaystirin daar baa jirta lagu dhammaystira waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada
dhawtonka meelahan aad tirahdaan Centerfield baan anaku wasta almadiina wadada haanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaan rash oo zaxmada haddaa tiraad dadka halkee tagaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tagaynaa galabtiina wadada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaa tiraad halkee tagaysaan wuxuu ku leeyahay waan raaxo tagaya gurigaygii baan tagayaa reerkaygii iyo oradeydii baan u tagayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxadu waa loo noqon doonaa إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة وبرسولك يري مركي الجنة الجلان أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت لقى بلعب واحد ليه النلل أدي مشد بلهين شباب نمو أن جبوا دم بلهين نعمت أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالورنا يا أين الدنيا حديث النبي كشك ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلا جنة دسك قليا كوجود درجة ابن النبي مالك الشكي حيوري وانن كالصباح يا جنة ابن النبي يقول جنة كالصباح يا قرقورة بك كالصباح يا الباب كي جنة إلهي بهر إيمانا يا إلهي بهرنا يا عبدي أدون كيجيو أرض جنة قلوة تاسع الباب كي جنة إيمانا يا إني يسيب الله قد يا جنة إني بحسنتي مركز النقطة يا رب جنة قل يقول تري وين بحدا مالن كده ما هيست مركز سلاء ورنا يا مبحدا أرض النقطة قل حتى أنا إيمانا يا مر لبعض مر صدحات مركز أفراد إلهي ورنا يا أرض جنة قل أو تك وقل جنة الدنيا دي يتوبن كيد بالله ده كيلي جالس الدنيا دي أي مسا توبن كيد وصاحد أرلد ويان أما واحد جنة يا لا الدنيا ما يلين ما يلين الدنيا محايا لا مركاسو ورنا يا أتسخر بي إله ما يقول ده ليسا أو تضحك بي مسواد يقول قصل صادق أبو بكر كيه مسكح دي سي كده ده عين رنتاس الدنيا دي يتوبن كيد بالقصية سعو إمام قرطبي كتابه التذكرة وحو كل شيء نكاسي مدحوينا مركز الدولة لو مقعابو كورمير بو سميا دل كوردن بو صومرا قبلدا تولوينكا دستريجيدا ميلكاسو صومرا وزارتها نكاسي وحو يري هل كانوا كبلابايا جنديسي هل كانوا كبلابايا الى دنعا كلا وكو سو wareegayo meesha uu marna mar labaadisha ku qaban maaye safarka wuxuu ka qaadanayaa 1000 sanadood imisa sano 1000 sanadood فياتي وحو إيمانيا الباب كي جنة ويسسوتها حور العين تسيبا كور إيمانيسا تنظر إليه وينظر إليها ابن عباس ويأجي وأجي أجمدو كلي هيا قادن يسيبوا دافرت السنادود إمسا سناد دلك جوكتان النظر فد تعانقه ويعانقها وكبو ديا ويكسو بوديسا ويسكو دقيان والمعانقة قدر 40 سنة ابن عبد الله بن عباس معانقته كلية waxay saysanayaan 40 sanadood oo kale وصعنايا مخسيكي cuntada ay taalay buu fadhiisanaya 700 sano cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cuno 700 sano أين الدنيا maxay tahay adduunyadu حور العين توان كشاكيل لهنا كله هواينكم ولا فديان بيانكم ولا دغيسنaya محاضرada حقوقنا وان شيغنا عجيب نعمة داسا إلى هيدتك مؤمنين تودياريي يطوف عليه 10,000 خادم بالنبي يقول نكا جنة قال يا دتك جنة قال وقول جغير وقول فقير سن وقول فقير لما ده كره وقول جغير واحد دوشي صدوافة يا ابو النبي يقول طبعا كن خادم بدول ضوافة يا خادم كن كلا أرك مايو خادم كان شراب كي عنتده وسده كوكله مسجده قريها جنة أبو النبي يقولي سده قريها أنا الدنيا ما هنا صدا سعرش وقال الله دام برسول كويدي أصحاب توي يا بن يا رسول الله قريها سده نقولينا وحول سده شمبرها ضد ولا سنة ضد ولا سام بيودي أنت هذا عنا سام بيها العب سام سندي كاذمين النغني مايان عنتده عسكو بدل يسار داعو ده سو كود جون مسكجا شراب قول عسكو بدل يا ديد كاسو سوونا مسكجا كود جون ما دمنيان ما قبوبيان
ma daalayaan ma gaajoonayaan ma harraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanasacnaa ma fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa hadday jirhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nuzulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka ilaahay ka mid ah alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toole nicmada ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebigu ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyadu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaabbay jannada ku leeyihiin layidhaa baabu salaa dadka soonka laazima albaabbay ku leeyihiin baabu rayaan layidhaa dadka sadaqada bixiya albaabbay ku leeyihiin baabu sadaqa layidhaa dadka jihaadka u dadaala albaabbay ku leeyihiin baabuljihaad layidhaa abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oon kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu yidhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jir rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhay oo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasuulku yidhi abubakar ow abubakar keliya ka geli maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigaygana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oy soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkayga way adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaishaa weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeye o nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadheeda muslimaday diinta islaamku hoos kuumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd
مرض قيدك كوكو حنبار سنيد قيدك كدبعي ليس إناد كسيبتي مالك كلي النحدينتي أي النحديبة أبالك ما سوعلم بكيدي حقين والدهن حقين دين الإسلام كمال بكوتي رساء أدوكونا اسكو حد قد بن ولا شيء مسلمة داي رقم بالله هاي دين بالله هاي إسلام باتهاي مؤمنات باتهاي وحد قد يتا دتكي هوينك إلهي الدويدا ورالك كغن نغضي وددو دي مريم بنت عمران كدايو آسيا بنت مزاحم كدايو فاطمة بنت محمد كدايو خديجة بنت خويلد كدايو دتكا سادون كان ياخر كل باني صدا وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم هوينك إلهي أفر بو كدورتي بو النبي يقول أفر تاسنا ومعي ومريم ونبي عيسى ويدي وآسيا ويان وآسيا غوريغا فرعون بي إيه دغنيد halka baydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhaxdiisa ilaahay ku caabuday asiya faadumana waa ina muhammado tacab iyo rafaad waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo qof ugu horeeyay diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horeeyay oo diinta islaamka dhaqaale ku bixiyay khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nabiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa leeyay waxay tiri gabar xigmad leehaydo afartaaba annaka uma dhalabay tiri subhanallah aqligu waa ajiib aqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka uma dhala imaamiyadana annaka uma dhala nabiyadana annaka uma tarbiyadana dhalabay tiri saacada gaadhay malaha allah ina fahamsiyo khayrul kalaami ma qalla wa dalla ilaahay diinta buu nasiya islaamnimada diinta inaan adkeysano oo nicmada u aragno waa nicmada ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkan aan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqillaha xaythuma kunta buu nebigu meeshaa doontaba joogo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nabigeenu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuuna siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan muuminka dhabta ma badilmay waxbuu badilaa lama saameeya waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dawlatul amawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia malaysia u tegeen tijaariya business calaa manhaj al-islam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay muuminku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah ixyaa ad-diin fi al-caalam nashr an-nicma muuminku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaarsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafka markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma badilmaya isagaa wax badilaya lama saameynaya isagaa wax saameynaya takaliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeenu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daas zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waddacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit al-atlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low camtu waraa hada albahri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina
haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaan u noqonayaa lianna alarda intahat lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddee toole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu reer madiina ayuu ahaa waxau ku aasan yahay suudaan abu ayuub alansaari reer madiina ayuu ahaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas reer madiina ayuu ahaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi reer dimashq buu ahaa farans buu ku aasan yahay bilaal reer makuu ahaa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u socna iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeenni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timide me aaway dadka yimide dalkan aynahum maanta intaad soo galaysa maskiidka ha ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib yaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagana calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yidhi falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weynee islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatada ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa dhahada dee bal wixiila niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahee bixitaanka un maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina aladii alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu اlardi ma ftarasat wاsahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libax ku noqday kayntiisuu libax ku yahay maslinku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegay dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajidda dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka xidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culummada iyo masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda faham walaal